وجهرين إن أنا مهد علي الله سبحانه وتعالى أو إن صور تجلي جود هانتين إن هل كان يسقون ماذا نصور تجلي جوله مردل كأها أتجوبها دجال كأتكسوه يسين وأنا قلنا هاي رنتي عدوجة أرجع حصدا أرحن الله وياشا يدل كودا دباتين هيا عشرة هذا أقول دكتين حبين كستا أو إذن كمدا وحنو رنتي أنا أقول مهد علينا يا سي قلبي أنا رنتي وأنا لا يهاي آد أياد أقول مهد سنتهين سيدا حجر لعنته هول كرني ماذا دلغات كله في فرعوني ده يجلس نماذج كده هنتاي ودوق صار دلاشين طبعا واجبات كي قرن كي نادو هيسن وعن سيدا صاك لرنتي ضمان تاني سجى تعسيينينا جسياشي قرن كان صاحب بدني ولا لهني قربهني نفط هذا أهري سيدا أيو إلى لهاين شرف كي كرامة بوادين تصومالية سيدا أيو إلى لهاين قرن مدن سيدا أيو إلى لهاين نفط إيا مالك دتك صومالية سيدا أيو دقن جلي لهاني وهر جلي لهاين دولة نمطة وعلنا الله سبحانه وتعالى جنة هايدين كورابيو هنتي حصوص تودو من نقدونتو مد مالنتي أيجا أنويني نجاجو يدونتو من نقدونتو وحي هاد دونتا مد قلبية ده نباقي كوا هاتا وحي نقدونتا مد قلبية ده ما ده حدا قرنك يبولشة الصوماليات باقي كوا هاد دونتا هدي إلهي وقلال وعن سيدا صوكال الله سبحانه وتعالى عافمات تامو قبرينا ضمان صاحبة ده نكودا وعمي هل قال هذا أتكو قيمة بدناي عن كجرمي صاحبة ده يديو وحان هينو رنتي وهولاد ياد مهمة غفك موادن كاهو مسؤولية أيا سارن إلى لنتا شرف كأي كرامة تيس ugu horeysay imada dadka Soomaaliyeed oo kale ilaalinta badqabka nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa magaca muwaadinka wala wadaaga muwaadinna waa muwaadin dabcan jooga hawlihiisa gaarka ah haysta midna waa midka anagoo kale ah aan isleeyahay anagoo kale kuwa marka ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan waxaan dhihi karnaa waa muwaadiniinta qaatay go'aankii ugu fiicnaa ee qof muwaadin u qaada lahayd wuxuu yahay asigoo ujeedo gaar ah ee uu leeyahay aanay jirin ayadoo aanay jirin interest gaar ah oo ku doonayo inuu dhammaan hawlihiisa gaarka meel iska dhigo u soo istaago danta qarankiisa inuu raali ka noqdo go'aansado naftiisa iyo dhiigiisa inuu u bixiyo ummadiisa inuu u adeego qarankiisa inuu u soo jeedo inuu oonka u maro inuu qoraxda u joogo inuu dhadada u joogo inuu uga fogaado familkiisii qoyskiisii iyo gurihiisii ayadoo ujeedadiisu tahay ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed suulinta cadawga argagixisada ah ee ummadeennii ragaadiye ummad kasta ee horumar samaysa ummad kasta ee barwaaqo gaarta hal furo baa asal u ah caafimaad in la helo waxbarasho in la helo horumar iyo barwaaqo kale in la gaaro dhan walba wax kasta oo la sameey lahaa oo horumara hal furay leedahay halka furo wuxuu yahay abniga hadii aan abni la helin waxbarasho tayo lama la heli kara ya hadii aan abni la helin caafimaad ma la heli kara hadii aan abni la helin horumar kale ma la gaari kara wax walba oo marka ku saabsan horumarka dalkeena iyo dadkeena asalka waxa uu aho waxa waaye abni koo waa abni laba waa abni saddex waa abni afar waa abni shan waa abni
amniga marka aan xaqeejino wax kasta ee dadkeen oo u baahna maalinta ayay suurtagal noqon karaan maalintaas ayaan waxaan xaqeejin karnaa mustaqbalka dadkeena iyo dalkeena maalintaas ayaan waxaan xaqeejin karnaa in la dhowro la ilaaliyo sharafka iyo karaamada muwaadiniinteena dhammaantiin ama dhammaanteen maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhiso waxaad ka war haysaan cadawga argagixisada oo dhibaatada oo wadankeena ku hay deegaanada ay joogaan oo maanta dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayaan nolosha ka jirta ka war haysaan caafimaad ma ka jira waxbarasho ma ka jirta wadooyin la dhisay ma ka jira horumar kale iyo horumarin kale ee qaybaha kala duwan nuucay doonta ahaatee ma ka jirta kama jirto waa cadow marka loo soo diray dadka iyo dalka Soomaaliyeed waa cadow loo soo diray inay daadiyaan dhiigga dadka Soomaaliyeed waa cadow lid ku ah jiritaanka dalkeena iyo dadkeena waa cadow lid ku ah dawladnimadeena waa cadow lid ku ah sharafkeena iyo karaamadeena oo meel walba naga gudbinaya in aan nahay ummad waalan oo aan danteeda garan waxaan idinkaga mahad celinayaa isaga mahad celinaynaa dhamaanteen inaad tihiin kuwa doorta marka dadkooda inay ka bixiyaan mushkiladda noocaas inaan nahay kuwa go'aansaday naftooda iyo dhiigooda inay u bixiyaan qarankooda inay u bixiyaan dadkooda midna ogaada dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba iyo gees walba abaal iyo wanaag ayay idinkaga hayaan waxaad habeen iyo maalin u taagantihiin oo dhafraysan